gudaha magaalada Dirdhaba waxaa maanta si rasmi uga furmi doona munaasabad ballaadhan oo loogu dabaaldegayo xeer ciise kaasi oo ay dhawaan hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanku ay u aqoonsatay xeer caalami ah munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay wafuud kala duwan oo ka kala yimid dalalka jaarka la ah Itoobiya waxaana ka qayb galaya munaasabadani wafdi ballaadhan oo ka socda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Ciid Faarax Mire Giire oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Axmed Yaasiin Maxamed Faarax wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Yuusuf Nuux Yuusuf Taadhase wasiir ku-xigeenka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Maxamed Muuse Bucul wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Samsam Saalax xildhibaano ka kala socda labada gole ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland siyaasiyiin safiiro iyo xubno kale ana Axmed Xasan Food baan ahay waxaan ka imid Jabuuti odayda gumdiga ciisaan ka tirsanay 6 kelmadood baan ku sheegayaa meesha xeerka ciise lagu asaasay dameer ma tago meelka xeesha ciise lagu asaasay eygu ma tago meesha xeerka ciise lagu asaasay qambaarku ma tago meesha xeerka ciise lagu gooyay geedaha dhulka ka baxa geedka gumar leeyda kama baxo meesha xeerka ciise lagu gooyay geedda waxa leeyda kama baxo meesha xeerka ciise lagu gooyay geedka ibaatays leeyda kama baxo 6 kelmadood baan walaalkow kuugu soo dhafaaqtiray xeer ciise marxalad badan buu soo maray xeerkan oo ah mid jira 500 ama 600 oo sano ilaa imikana lagu dhaqmo wuxuu bilaabmay waqti colaadeed waqtigii ay dhaabeen dawladihii islaamka ee Cusmaaniyiintii iyo ka talin jiray ay baabeen xoogagii islaamku ay baabeen ummado kale oo fara badan ay joogayeen maxaan ku raahdaa dhulkeena ay deganaayeen ummadahaas wada colaadaha colaadaasoo cidda ay ka roon tahay ay caburin jirtay ay baabi'in jirtay dadku isqalanayeen adooma jireen waqti dadku ay sida xoolaha loo iibsanayay markay sidaa joogto iyaa la gartay sidii loo noolaan lahaa ee ummaddan u sinaan lahayd ee bal inta meesha wada degan ay u samaysan lahayd xeerkaasoo ah mid lagu wada noolaado oo sidii cadowna la iskaga kaashan lahaa dhulka lagu ilaalin lahaa nolosha dadkuna ay u sinaan lahayd waayo dadka waxaa jira qolo badan iyo qolo badan oo aad u badan iyo qolo yar oo kooban baa jira haddii labadaa qolo kan badani ka kala muquuniyo dhibteeday leedahay waxa la sameeyey dadku ciise waa wada ciise ninna caara ma dheere baa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waxay naga dhexeeyaa la yidhi xeerka ugaaska iyo dhulka lama kala laha baa la yidhi wakhtigan dadkani waxaa lahaayeen waa wakhti aanan jirin maxaan ku dhaha dawladnimo xeer ma jirin dawladnimo ma jirin kala dambayni ma jirin laakiin nasiib ay yeesheen iyagu waxay samaysteen xeerkii adduunyada ugu qurux badnaa ummadaha kale markay ugaaska dooranayaan ninkii lacag leh ninkii xoolo leh ninkii awood leh iyaa yidhaahda anigay doorta aniga iga dhiga suldaan aniga ugaas iga dhiga lacagtiisuu fangareeya kanna wuxuu kaga duwan yahay arrimahaasoo dhan ugaaska lama oga goorta la qabanayo cidda laga dhigaayo ugaaskani waa mid ka cararaya ama reerkoodu way ka cararayaan maxaan ku idhaahdaa boqortinimada inankooda loo qabtay way ka dhuumanayaan waa boqortinimo laga cararaayo waayo inankani reerkoodii haddata wuxuu maaha ugaaskan la doortay reerkoodii waxba uma aha waa ugaas ciise ummadda kalaa leh aabbihii ma leh hooyadii ma laha marka marxaladaha buu soo maray maantana wuxuu gaadhay heer caalamkii aqoonsado la isku raaco xeer ciisuu ahaa maanta waa xeer Soomaaliyeed waa xeer Afrika aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan magaalada Dirdhaba maanta waxay noo tahay farxadana loo soo koobi karayo aabayaasheen xagga ay dhigeen baan doonaa insha Allah ka sii qaadno xeerku waa waxa quraatay maanta meel qaatan lagu maamula waxaan ku faraxsanahay maanta haddii la aqoonsaday waxay noo tahay farxad noo tahay la soo koobi kareen Maxamed Shiciir Axmed iyo Cabdinajiib Dayib Cismaan magaalada Dirdhaba